ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee isbitaalka loo yaqaan ayaa waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ciidanka danab waxay ku qaarijiyeen 7 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasi oo dhibaato badan ku haya dadka deegaanka isla markaana lacag baad ka qaadi jiray gaadiidka isticmaala halkaasi ee aada dhinaca iyo gobolka Bay iyo kuwa soo aada magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidoo kale ciidanka ayaa waxa ay burburiyeen goobtii ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadkan ay qaarijiyeen. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Odawa Yuusuf Raage oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka danab ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Leego oo hoos yimaada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaana uu tilmaamay taliyaha in howlgalkaasi lagu qaarijiyay 7 ka tirsan maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab isla markaana lagu burburiyay goobihii ay ku dhuumaaleysanayeen. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen howlgalla ay ku bartilmaameedsanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoona ciidanka kumaandooska gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay wadeen howlgalloha ay markaasi ku bartilmaameedsanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada Al-Shabaab. Maxamed Muuse Maxamed, idaacadda codka ciidamada qalabka sida.